السلام عليكم أصحابتي qaaliga waa idin wada salaam markasta adduunka joogtaan walaalay qurux badan waxaan idin leeyahay caafimaad ku waar insha Allah aamiin waxaan rajeynayaa inaad soo nabad kacdeen saakii subax qurux badan kaalaska arag soo salada si aad arkaysaan wax kasto ayaan ku diyaarsadaa oo caruurta igu saabsan oo fasaliinka saacada arkaysaan waxa waaye ilmaha hadii blooyada ama xafaayada oo kaleeto ay ku dahdo ama ay dabada ay ka jarto kaleeto ayaa loogu talagalay in laga mariyo waxa vitamin D ga ay wax kasta marka gabadheedii yartana waa diyaarsan tahay meeshan waxay la soo istaagtay ko yacni waxyaabihii u baahneed oo kale waxay leedahay ana doonanayo waxaan dhahay marka doono orod meesha ayaan iska fadhiyaa mid shay ii keenaysaa mid mare doonanaysaa big wal fakada hadda waxay rabtaa inay iyada adeegato hadda waa soo noqotay ma leh taageerta ma fahanti dooday ku jirtaa kaale taageerta soo istaag ma leh islaanya meesha maxaa u fadhisaa dhahdan waxaan may kamiyela saaxiibay wixii meeshii yeelan soo qaad waa awooda inaad keentid soo doono waxa keenso anigu kuma soo istaagayo kuma adeegaan fahanteen soo marka wiilkii yarkana waa kana asagana waa soo libistay oo diyaar waa halkan ayuu fadhiyaa abooda suga oo is diyaarinaa asagana sidoo kaleeto caruurta marka waxa xanaanada meesha lagu tuuraa kadibna waxa waa shaqadeena iska gal doonaa insha Allah caruurtii waa la kaxeeyay ani waxa waaye waqtigii waxaan jeclaa ayarka ahaysta inaan ka faa'iideysto oo aan isla markaa wax alaal waxaan qaban karo dhan inaan isku dabarido caruurta intaanan doonanin oonan keenin xaafada marka waxaan soo qaatay digaag ayaan dabka soo saartay digaaga marka soo saartay dabka waxaan rabaa qadi inaan boobsiyo bariis kala iska arag bariis iyo Soomaali mar kale waa faadeen hadii aan Soomaalina bariiska aad iyo aad ayaan jecelnahay marka waxay iga qabatay oo kale tamala wax inaan dubto mala wixii ayaan soo qaatay ayaan soo dub yani aan soo qastay markii aan soo qastay mala waxaan ka koobay insha Allah waa bur caano iyo ukun iyo sokor iyo wax yar cusbe kaaliska arag laga sheekin karo mala wax yar oo gaduudan oo kaaliska arag indhaha u roon oo jilicsan ay kugu soo baxaa marabta mala wax qurux badan oo jilicsan hadii aad rabtid caanaha ugu roona wax biyo kuma qaso caano leh ku soo qasay mala waxna waxa fiican markasta inaad jilaac ka dhigto يعني أوصل ملوح هذا كانوا قنين عروتنا وفي عني هاي لكن أنا أهانتي عروتي إذا بحب جيران بوابحين لكن أنا أهانة إذا قبضت ملوح أنا مانتا كقراعدو ملوح ركسو سيستم فهندي سوح مجرتها وحيابا كاقبانيسو كالس كارق ملوح حساسوك صب حبيرتا أنه حابا هاي ديبنا الله ومعناها أدوها وحيتا ملوح حليقان إنا أنا ينكو قراعدو عروتي إذا مركي أن سكول كاين أنا إيقوي سوق ديين لكن قد كدب دي عسري أهان إنا أغلق إن شاء الله cuntana waa iska sii karnaa casho ahaan ama wixii iyaga jecel markaas ayaa la sii doonaa insha Allah waxa way ku tasho adi isku tashaal laha meeshan digaagii weyno soo bislaaday kadib waxaan soo saartay saxankaas dhalad ayaan hadda ku soo riday waxaan rabaa ovenka inaan geliyo ama foornada inaan geliyo insha Allah saa arkaysaa meeshan waxa igu jiro garlic oil waxa loogu talagalay malaayga ama digaag oo kaleeto hilibka wax kasto marsan kartaa halkaas dhalada soo kale iyadana waxa igu jirto kabsar caleen iyo toon aan isku soo shiitay bishii oo dhan waa isticmaali kartaa aniga hadda bishii markii ay dhalinaysa ayaan isku shiitay saliid ayaan ku shiiday waxa kale igu jiro raqay dhalana kala arkaysiin waa timirta loogu talagalay timir shiidan waaye hilibka aad iyo aad macaan ay ugu dhigaysaa maasha Allah tabarakallah lagama sheekan karo soo hadda waxaan ku soo shubtay wixii alaal wixii u baahan tahay ku darsan kartaa qasab ma markasta waa idin dhaxaa wax alaal waxay ahaysato gurigaada ay ku darsan kartaa qof kasta waxa uu shaqeeyay ani inta inaba caadima hadii lagu daro oo la isku daro yaa hilibka digaaga malaayga inta hadaa marsato kaaliska arag lagama sheekan karo soo timirtii ayaan hadda ku soo daray marka waxaan sameyn doonaa brush yar ayaan soo qaadanaa dush ayaan ka marinaa oo dhex gelinaa asaga dhan kadibna waxa waaye dibka ayaan u diri doonaa 150 ayaan geey doonaa digaaga marka hore waa bisil yahay hadda wuxuu u baahan yahay in la gaduudiyo oo bisle oo maasha Allah tabarakallah ku soo baxo brushka sirka ayaan soo qaatay brushka waxa la ciiltir ayaa lahaa gacmaha hadaan jeclayn in la gashid waxa waay brushka sir la qaadanaa rag ay ku siinaysaa kaaliska arag ay kugu soo bixi doonaa insha Allah soo marka waxa waaye bariiska yar iska karso hawshaad iska qabso ciidna kuma maqnaaceen kuma qodna ama qal jiran faanteen adile isku tasho adile xamaala adile gurigaada ka shaqeysa adile wax kasta sameeysan laha halkan wax yar xabaash waxaan soo qaataan dhahe barbarooni shiidan ayaa kor kaga dadaadiyay kadibna waxaan soo geliyay foornada digsiga ayaa dabka soo saartay kadibna waxa waaye digsiga saliidi bagaga ee bitaagantaha digsiga marka hore waa ka ku kari digaaga waa digsi kale ina sii wasaqay aan diidaa alaab kale inay ugu soo wasaqoodaya
iska fikir ma fahanteen. basasha waa soo gaduudi aad ayaan usoo gaduudiyey waxaan ula jeedaa basasha kuma dalici doono bariiska laakiin waxaan sameyn doonaa basasha gooni ayaan hadda u saaraysaa arkaysaan bariiska hadhow markuu inoo karsamo ayaan waxaa rabaa dusha inaan kaga daro oo ku qurxiyo oo maasha allah tabaarakallah noogu soo baxo marka basashii si fiican ayaan ugu soo guraa hal xabo uguma tagaayo kadibna bariiskii aan soo dhaqay 3 mar ilaa 4 mar in ka badan yaa oo kaala iska arag oo biyo aan lasoo dhigo marka horeeto ayaan kusoo shiili doonaa saliid yareed ee ku hartay kadibna waxaan kusoo darsaday muuqaalka xoogaa waa yara boobsi doonaa insha allah xawaash yar oo dhudhuub xawaash burburkii soomaaliga ahaay waxaan kaloo ku daray kuryaandar waxay dhahayaan kabsar caleentii toontii shiidneed kabsar caleentii toontii shiida inaba caadi maaha haddii aad diyaarsato kabsar caleenta sidoo kale iyaduna sidoo kale iyadoo balbalaarna waa jeclahay caadi u jarjartaa labadaba waa ii taalaa waxaan kusoo darsan doonaa insha allah 2 xabo maraq digaag nolosha easy waa ma fahantay saadi u fududeysato hoosh sida u fududeysato ayay ku xiran tahay soo maraq digaagii markii aan kusoo burburiyo xoogaha bariiska ayaan laftii dhuuxa iyo dhagaha ka gelinaa ma fahantay bariiska xawaash badan baan kusoo daran sa arkayseen bariiska xawaashka markii aad ka yareyso aad iyo aad ayuu macaan badnaanay xawaashkana haddii aad jeceshahay waa ku badsan kartaa insha allah waxaan kaloo kusoo daray 2 xabo liin dhanaan liin dhanaanta la qalajiyey waxaan kaloo kusoo daray qorfo waxaan kaloo kusoo daray heel ayaan kusoo dari doonaa waxaaba kaaliska arag bariis caraftiisii adduunkiisa loo dhammaystiray maxaaba kaa maqanba yaa kaaliska arag waxaan kusoo daray markaa digaagii maraqii aan ka bixiyey ayaan kusoo darsaday wax yar oo biyo kaleeta ayaan kusoo darsaday oo soo karkariyey biyaha kuma badi doono soo bariisku noogu noqdo bariis furfur oo kaaliska arag ayuu kusoo bixi doonaa maasha allah tabaarakallah marka aluminium ama hadda waxaan soo qaadan doonaa marka hore waxaan iska dhadhaminaa cusbada inay cusbo fiican tahay iyo cusbo kale inay u baahan tahay kaaliska arag wax yar oo cusbo ayay u baahnaatay cusbo ayaan kusoo daray marka aniga digsiga marka waxaan sameeyaa bariiska markii aan dabka aan soo biyeeyo aluminium ayaa dhab ku siiyaa waayo waxaan diidaa daboolka caadiga haddii aad saarto xoogaa bariiska dhan dhibjiq ayuu kaa noqonaa laakiin aluminiumka markaa si fiican ugu xirto bariiska asaga dhan wuu soo huura kor ilaa hoos wuxuu soo noqonaa maasha allah tabaarakallah aadna kaagama jilcaya bariiska haddii marka horeeto biyaha u yareyso kadibna waxaaba digaagiini wuu inoo soo bislaaday hadda diyaar kaaliska arag qurux oo kusoo baxay inkastoo yiriis waxoogaa dabka iga boobay laakiin maasha allah tabaarakallah soo bariiskiini hadda waa inoo diyaar kaaliska arag qadadii waxaaway 1 iyo 2 iyo 3 lagu soo tuuray ani waxaan jeclahay hoosh isku daah maba jirlibo cunto karinta aad iyo aad ayaan u jeclahay inay ii fududahay wayn ii fududahay waxyaabaha kale ayaan ku mashquulaa iskaga maraqleeyaa mooyaane laakiin haddii markay noqoto cunto karin waxaaba dharag 2 daqiiqo iguma qaadato soo basashii aan soo shiilay markii hore arkaysiin oo aan kasoo saarayay ayaan dusha kaga soo daadiyey kadibna waxaan kusoo daray kabsar caleen yar ayaan kor kaga soo bilbishtay waxaa digaagii ayaan hadda dusha kasoo saartay weelka waaba iska dhaqaaba maxaaba weel meel yaala iyo waxaas ku geeyey oo yacni 2 weel ay kugu kala jirayaan bariiska iyo digaaga awal bool isku cuni lahaa dusha iska saar maasha allah tabaarakallah intaas isku soo huuraan kaaliska arag lagama sheeko karo quruxda lagama hadli karo soo sabiib yar ayaan dusha kaga soo daadsaday haddana aluminiumkiisa ayaan ku soo celiyey waxa waay meeshan ayaan soo aaday dhaqadii markii hadda aan soo diyaarsaday dharkan ayaan soo laalaabay qaybta aan cad yacni gooyaasha cadcad shukubaanada cadcad kulriin ayaan kusoo dhaqay markasta waxaan sameeyaa marka wixii cadcadoo dhan hal mar ayaan isku soo wada dhaqaa meel kasta dhar ay ii suran ama ii saaranba dharkii waan soo laalaabay maradaas arkaysaan cad midaas waxay iga noqotay hadda ka hor mara kale iga dhex gashay oo iga yacni kalar gaduud camal iga galay sida uga bixi lahaa falankeeda ayaan ku jiraa insha allah soo marka meel kasta dhar ayaa ii saaran waxaa waaye shaqada adduunka howsha ma dhamaato adile daalaysa mooyaale howl ma dhamaato qaanadihii ayaan soo kala gurayaa qaanadihii loogu talagalay maryaha go-yaasha aan ka gashto kaleeto inkastoo guriga hadda ani aan degan oo kaleeto qaanadihiis aad ay u yaryihiin oo ku dhib qabaa laakiin waxaa waaye basar adduunya bilbasar aakhira bilcamal ma fahanteen soo wax kasta ku basareysan karta adigaa taqaanid qof kasta iyo gurigiisa iyo asaga ayay qusaysaa insha allah soo gooyahii cadcadaay shukubaanada waa ka reebay laakiin gooyihii cadcadaay oo dhan waxaan iskugu geeyay hal shabaq ayaan iskugu geeyay meeshaan iswal walaaqa ku jira dhararya waxaa waaye hoosh waxyaaba la iskugu madadaaliyo ka mid tahay ma fahanteen soo shabaqa kaleeta ayaan soo qaata hadartaan gooyahii kaleeta ee kalarka lahaay oo kala dudubnaayeen ayaan kusoo wada guri doonaa baatida sida arkaysan kuraasta ayaan dusha kasoo saaray waxaan diidaa mashiinka wareega ama qalaj sidoo kale inaan iska geliyo ma jecli markii qalaj sida la geliyo baatiga waxaan jeclaa isagoo yara qabow oo naacim oo kaaliska araga
in aan laalaabto kadibna waxaan sameeyay baatiyada kuraasta ah waxaan dusha ka wada soo saaray laakiin insha Allah waa ka wada aruuri doona kulligooda dharkan harto wada xareynay ko marka waxaa la yiri ko midka hore qaad baad midka dambe ha ku dambeeyo waxa go-yaasha iyagu darnaayeen adduunka waxyaabaha waaweyn oo nacbaa ma fahanteen soo go-yihii waa kana waa soo kala xareeyay hadda tan shabaqan ayaan kusoo kuusi inta kaleetona waa qaadi doona hadda tan waxaa qaandiis aan geynaa waxa waaye muuqaalka insha Allah haddii aad ka heshaan muuqaalka noo share gareeya intaan ogahay muuqaalka xir khayr caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo idin rajeynaa waxaan idin leeyahay muuqaalka noo share gareeya oo laagta naga iloobina commentigana xaggin insha Allah haddii muuqaaladan oo kala ka heshaan